qaybtanna waxaan ku eegi doonaa hodan cabdulla walanwal oo ah gabadha cilmi boodhari jacaylkeeda u dhintay iyo odaygeeda maxay qoys ahaan caqabad kala kulmeen jacaylka cilmi boodhari waxaana warbixintan inoo diyaariyey Sidiiq Maxamed Burmad oo kala sheekaystay Rashiid Maxamed Jabeelle oo kamid ah wiilasha ay hodan dhashay hodan cabdulla walanwal oo ah gabadhii uu jacaylkeeda u dhintay cilmi boodhari waxay dhashay 9 ubada laba kamid ah yaraanayay ku dhinteen 7 u koray gabadhiyana geeriyootay mooyaane 6 kale way nool yihiin oo kala ah 4 wiil iyo 2 gabdhood maxamed Shabeel oo hodan odaygeeda bah kale ma yeelan hodan intii ay noolayd iyo markii ay geeriyootay midna tamarkooda mu guursan kareentay way mu guursan kareen sababta aduu markaad guursato gabadhii magaalada ka dhaqdhaqaaqaysay intaas loo tiriyay shuhada dib guursadaydi wuu jeclaadee marka macnaha faham awey sidaad u guursanaysaa gabadhii magaalada ka dhaqdhaqaaqaysay aduu qaadatayba cilmi boodhari oo dhowr sanaba jacaylka hodan la ildaran gabayadiisuna ay noqdeen kuwa iska soo daba dhaca hadalhaynta maansidiisa iyo waayihiisuna ay caan ka noqdeen Soomaali meelo badan oo ay degto gaar ahaan Berbera iyo nawaaxigeeda ayaa calafkii hodan yimi maxamed Shabeel oo waqtigaasi ka shaqeynayay wasaaradda maaliyadda ayaa hodan guursaday jacaylkii cilmi u hayay hodan halka kumay joogsan gabayadiina muu jarin maxamed Shabeella wuu ogaa markii uu guursanayay inuu cilmi hodan jecel yahay lana wada og yahay aadna loo hayo haddana maxamed Shabeel kuma yarayn gubashada ay dareenkiisa gubayaan maasooyinka iyo gabayada cilmi qalbigiisa ka soo gurmaya wadaadkan Allah naxariistay cilmi badbu shubay baddu uu shubay uu gabiyay wax walba uu ka hadlay waxaan ka hadlay ma jirto dadka horta uu ka horeeyay suuq maanta aantu tan maanta la marayo uu soo qadimay uu ka soo maanta ayuu joogo maanta lama qabsan kareen loo aadiya هذا كسيده baa loo sheegaa cilmi guddiisu dhibaatooyin badan buu geystay markii hore aynan tahaydna muu doonan oo muu odhan kaalay oo intii raaca odayaasha inta la siiyo markii dambe maxamed Shabeel guursada haddana muu joojin oo ka sii dabagabiyay taasuna ka darayda ahayd هذا كسيده baa loo sheegay adigu imika kabaha waxaan ku gelinaya maxamed Shabeelle abahay hadii xaaskaaga guriga joogto nin u gabeeyo suuq uga gabeeyo oo maqaayadi fooq dheer iyo maxay ahayday dagaal weyn nooba uga gabeeyo waliba gabayo khatar ku hadlay uu leeyahay maxay ahayday hadaan ku soo qaado gabayada qaarkood khatar hadii dibha ha markuu leeyahay wuxuu yidhi kolba anigoo sahashaday oo saari ka ahaaday ayuunbaa siraad midabtiley lay sawirayaaye sidrigay ku daabacan tahee uma sakhraameene sidii saacaddii bay qalbiga iga socotaaye habeenkii markaan seexdo wuu ila safaadaaye salaada hore iga tagtaa oy siiga noqotaaye marka aad waxa ogaadka ninka dawladda la hadlaysto waxa kaliya marka kabayhi aabal la gashado ee gabaygan la dhageysto oo guriga gabadhii ku joogtay gabayga lagu sheego maqaayad fooq dheer ee Berbera ku taale laga tiriyo ish qiyaasak oo dagarta lama qaadin dadku iska daba galeen mooyaane waxaan uma way fiirsanba hadii dhigayso waa gardaro meel loogu soo gaban geedna dadku waa loo karnaqaya qiimna ku jiibsan maayo maxamed Shabeel ku jiibsan maayo laakiin labadaa nin aniga aabahabkiisa waxaan ka hayaa waa ninkaas dhibaatadooda ii geystay dadku ma oga dhibaatadu ii geystay wax lagu jeedo maxamed raali iska ahoo ninku nin waarana inaga daa dhaqankeenana maba ahabaden naga qabo iyo gabar gurigood reerkoodii joogtay loo gabiyo maxsoo laakiin Rashiid waa markuu xaskaagu caadiga yahay aad si fiican u fikir karayso Soomaaliya ee xaalad cilmi oo kale ku soo mar hadaynu kabihi Rashiid cilmi ma waalay dama horta anigu xadiidanay cilmi nin waa ma hay laakiin jacayl baahi ma wala
aadiyaan ninka waa loo xanaan madaxa saaraa waxba si ka cilmi waxba si kama yihiin waa hadii wax si ka yihiin intaas lama helaan bakabe garan wuu riyoonaya habeenkii buu ku riyoodaa marka wax weeye haddana waxaan noqonayaa ka waxaan u hiilinaya waa dhaqankii baan u hiilinaya waayo waxa weeye waqtiga dadku taabuu waxa bay ogolaayeen waxaan laga hadli karin bay ogolaadeen khasab buu kaga dhigay inuu gabiga u tiriyo salaada hore iga tagto isiiga noqotay ishfaada ايش قياسك؟ أقول إنك أقولي ذا قبل قاعد أنت سوق لا كمان أسأل تري إذا كنت تقولي تمر كم نك نيان تكانو نيان كوريني وأقولسي وحنا لا جماعة الله لا جماعة اللي كانوا كنا مع أيو سنك عمري ولا دقيست جيسي بوها وسعود سي تيسي وسعود سيو ولو وحياة هذا كزومو والله ما حبيت كم يقولي واحد ما حنكو الله يا marka dawladdaasi arrintu ka saarkayd mo miyay shaqaneen kulli isku magaalada way wada joogeen cilmi iyo aab horta ma shaqaneen barbarsonaatigin hadda barbar tawassul ku wada noolaa inta jeer isku sarbaxna maalintii tamiis waa barbar weyn iyo fooq dheer iyo afarta baqayood dadku fadhiistaan odayaashu magaaladii magaalo kale haystay barbarin bay ahayd afarta xaafadod bay ahayd waa daaroole dekada ka soo shaqee daaroole kaalay dalaal weyne waa intaasi ahayd odiga bay wuxuu yiri cilmi saasan soo maqaayadaan suugiba jirno sheekaysan jirnay oo shaahud cad jirnay way siqaaneen waxa weeye midda kale ilan cilmu ahayn nin meel ku xirxirana تماوز ولا شو ما خايدوا الفلسطين شو دوحوا عن اللي قالوا اللي يرابوا عند شن شيء بس كسور بحيه بلا هذول من برا اللي دون قبلنا ولا اللي قالنا هذا اللي شعب هذول بس كسور بحنا شن شيء ما أنتي ما كويس يقاني marka wax dheeraad oo wali inay ka wada hadleen kaftan way kaftan jireen inta aniga adigu wuxuu sheegay baalin ku yiri war cilmi asoo soo qaba fadhiya war hada xalkaagu waa sidee محمد والله سيد هروان ده أبو كوري. وأنتي وأبو هو يمرك أبو قريب. ها. حاسي ساي هاي. ها. حي. والله ده هيقول. أقول محمد والله ده هيقول كوري. jacaylka cilmi hayay qofka uu warwarka ugu badan ku hayay waxay ahayd hodan oo ah gabadhii uu jeclaa tan iyo markii uu bilaabmay jacaylka cilmi waxay hodan u ahayd naxdin iyo dhuumasho iyo warwar waxay noqotay gabadha loogu hadalhaynta badan yahay intii uu gabiyay cilmi markii uu geriyoodayna waxaabay noqotay oo ay dadka u qornay dambiile qof arka oo il naxariis la ku eego hodan ma jirin sida la sheegay cuqdad iyo sas ayaa waxay ka qaaday aragtida laga qabo oo ahayd gabadh bilaa naxariisa waxay cid ka filataaba waa daymo kulul xan afka ama uurka ah oo laga xanto iyo kelmado niyad jabiya wiilkeeda Rashiid Maxamed Shabeel markii uu qorayay buugga madhaba jacayl waa loo dhintaa hooyadii arrinka cilmi boodhari wax buu ka weydiiyey anna isaga ayaa waxaan weydiiyey bal inuu iiga sheekeeyo dareenka hooyadii sidii uu noqon jiray marka sheekada cilmi cidi soo hadal qaado ama wax laga weydiiyo dhaqankiina marka deegto dumarka Soomaalidu way xalal adeegyihiin waxyaabo badan baadan ka garan karin kana noqon karin ninkeeda oo dilo oo faraxmeeya oo suu dalo u gala ayeen sheegay oo Raiisul Maxamed oo kale ma jiro oo waxba u dhigaysa hadda ma fahamtay laga ma karto ninku waa la ka karteena deema ku sheegaya waxa laga hadlo laga bogsadaa ninkan wax laga hadlay waa halkan ku sheego taabuu laga dhigo laga mahlo arrintu si xumaanaysa qofkii inuu ku xumaanaysa iyadoo hadaba taagnoodu nin baa ku dhintay wana baad goysay xalaq waa si yaal loo sheegay ama xabad ku dhufo masku ninkii ku dhintay ku dhintay dad ku qoreeyay marka de qofkii dareenkiisi mid kale nin baa u dhaxday ma dareenkeedii yaa sheegi karaya lamana tafir kale duwad qof ibn aadam way caruur bay dhashay way wala taagna baa ku dhintay gabaydi baa la hayaa proof ba meeshii yaala way exit baa daba wadaay oo ugu hayaa oo qoos qabto alaabta lagu hayaa oo kale dad didi karta dhaqanta soo way loo dhigo gabayo dawaab qofkan uu dhintay waduu ku dhintay waa buu sheegay oo ku dhimanaya buu yiri buugga markii aad qoraysay su'aalo aad weydiisay ma jiraan hooyo waxaan weydiinay ma jirto waxyaabo badan ma weydiiyo gabayaan weydiiyo gabayda qaar bay
aqoon bayadu way maqashuun mooyaan may xafidi jirin gabayada waayo dee ma garanaysaa nin bay u dhaxday dee qofku xorriyadiisa baa laga qaaday soo moo xaggaa weli dadku kamay hadan harka gale hurdada way xuntahay urusked baa dadka haysatay hadday iminka qaar haddii gabadhooda saa loo jeclaado way wareeri lahayn qori bay soo qaada ku dhufan lahayn hooyo goormay ayaad aad ku wada dhiiratay ama adigu aad ku dhiiratay inaad wax ka weydiiso ama iyadoo ay ku dhiiratay inay ka hadli karto de waqtigaa waxay ahayd waxaan dhici karin inuu gabadho suuqa uga gabiyo de kumay faraxsaneen dadku waxay u arkeen negative bay u arkeen marka iduu haysta waa ninkan marunu ku daaya dee waa runtii dee saasay tahay oo culays buu dee ku hayay oo dhaqdhaqaaqeedii baa xitaa dee koobmay soo koobmay okay marka maxaa imanaysa waxa weeye culayskii buu ku hayay culays buu ku hayay caadooyinkiina waa taqaanay inuu ku sheegayo oo adigaaba nin abwaana weliba at the time uu dhintay oo kale dadku u haystaan uu iyadii u dhintay dee waxbaa jira waxaa ka jira laakiin dan xanuun baa u raacay leenay aniguna waxbana jir gabihiisa ku sheegay wadaadda aanu soo marin ma jiro qardhaasaan soo xidhan ma jirto oo wax lagu waalay madaxa la qaban jiro qardhaasaa loo sameeyey waxbaa loo sameeyey gabihiisa buu ku sheegaya marka cuntadii buu ka go-ay ka go-ay wuxuu ahaa un tegi joob badun buu qaban jiray ala ay xaal aan kugu soo noqdo hadalka tiyaartii hore dabeeto waxay imanaysaa waxa weeye waxay imanaysaa dareenkeedii markii dambe uu dhintayna dee qofna nin aadan garanayn baa tiraa markii uu dhintay ay waxaa tirahaa alla yarxamo oo dee kuma israexnama hore ninkii uu dhintay dee qof 10 sano kuu gabiyey dee waad garanaysaa qofkii badda firi kartid dee ya hooyadii nacas ma ahayn frii bay ahayd wada way garanaysaa waxay leedahay ninkii xasoo baddaa soo tiriyey haddama garatay dee ma ilaabi karto midda kale way aragto dukaanka ku arki jirtay marka dee kulley odhan mayso waan maan qalayaa ninkii waa dhintee dacweye dee waa qofka ka xumaanaya weliba waa giltiba qofkiisii noqonaya marka aduu kuu dhintay dhibkeeda weye ninka haddii aho adiga gabadha ninkii dhimay dee gabadha yaaba mushkiladana maxay ahayd cilmi inkasta oo uu dhowr sannadoodba jeclaa hodan oo inana oo aan weli la guursan haddana lama kulmi jirin lama hadli jirin mana aamusi jirin ee mar kasta gabay ayuu dadka u soo dhex marin jiray haddii laga tegi waayo waxay hodan u sheegtay inankeeda markii uu buugga qorayey inay dhacday 2 maalmood oo nin muuse la yidhaahdo uu cilmi soo abaabulay si uu arrinka ugu soo bandhigto iyo jacaylka uu hodan u hayo nasiib darra 2daasi maalmoodba may noqon sidii muuse iyo cilmi ay rabeen oo kalamay hadal jacaylka cilmi uu u hayo hodan xagga hodanna arrintaasi kamay riban ee qadar allah ayaa baajiyey iyadu runtiisaan kuu sheegay waa shacayl kuwan wey buu ahaa communication muu jirin iyadu marka horeba ha deena yar bay ahayd in yaroo guriga marka dambe lama maqlayna garaan waxaa la yidhi fadhi guriga ka bixin bay meel uma bixi jirin inay de meelahan guriga hortiisa iyo sila fadhiistaan habeenkii mooyaane dee isha lagu hayay marka hore ilaalin jiro dee lama ogoleenba marka waxaa jirtay iyadu waxa dadkuna wad garanaysa adigu imka nin Soomaaliya tahay dadka Soomaalida waxay la rabin waxay dhaadaan imka adiga hadaan lagu waa ninka waaranay maanka haa Soomaal marka waxa weeye waa ninka adooninkaagi jirta maanka taag u xidhnaa marka waaran kan ka sheekeeya ee halkan ka dhurmaa baa lagu oran jiray hooyaday anigu waxay ku tuwaa aniga ninkan iska dhurkaa ka dhurmo ma haystay khaldaad ku sameeyay cilmi dadku waa la shiilaa arrinta moogtay cilmi baa la galay ma heedii sumbu ka heesay hadduu tegi lahaa 4 odayo ida galo lahaa ariga oo kale inta waa rabay dee soo shaqaysan inta lagu ku doonan tahay orosh ka tago dee soo haysto hagaaji ma sameeyay weli reer Cabdillah uu tagana ma oran inta la siiyo inna uu dirsan weli Rashiidow ma weydiisay intuu iyada u yimi inuu kala hadlay waxa uu ka rabay inuu jeceliyo inuu maalin u sheegtay hooyo ma weydiisay ma weydiiyey maalin buu geed isaga buuse alla yarxamo labadooda ayay islaamtii eedada sidii loo guriga ka sii baxsantay arkeen horta waxa jirta uu ku meeraysan jiray guriga sikada ay ku jiray soo de meelaha uga arkatay uu ku meeraysan jiro
gabay baa buu sheegi uu leeyahay dee sidii hilaac baan ku maraa guriga hortiisa ku maraa oo waa caadi oo imika baynamada wax jecel hablaha guryaha toga wada hormaraan waa shaqo la yaqaano weeye gabaydu ku sheegayba iyadaa degan tahay waa walba waa gabayga waan hayaa marka dee uu yeeri jiro iyagu gaaladu waxay dhahaa waa stalking waxa weeye waa qofka xorriyadiisa baad ka qaato meel baad ka basaasiisaa marka waxyaaba badan baa iska jiro nin jacayloo meel iska jiifa maahayn dee waxyaaba badan buu isku dayay wuxuu isku dayay maxay ahayd maalin bay iyagoo meesha maraya arkay islaamtu ka baxdo dalqa bay guriga yidhaah islaamtii wax ilowda baa kusoo noqoto iyagoo fadhiyo markaa soo galay soo noqotay way eriday bay ka saartay guriga isagee muuse ahaaye yani da muuse ii sheegay muuse carab waa ninkii budliga dee saaxiibkii madaxaayeen dabeeto waxaa kaloo jirtay maalintaa uu yidhi gabadh buu ku yidhi ay tagani ahayn ha odhanin oo annakaa joogne waa gurigii de hooyaday iyo maalintaa ha dee joogto iska ay usoo galeen maogta si soo ag fadhiisteen maogta iyagoo markaa la hadla ay islaamta ku qaylisay islaamta waxaan way garanaysa dabeeto inamada waxba may odhana waxba may sameyn waa sidee ilan dee hooyaday way ku aragtay waagii iibsan jirtay hooyaday yarayd tegi jirtay dukaanka way taqaanay dee cilmi way garanaysay waa ninkii dukaanka iibsan jirtay baa la yidhi marka maalintaas horta way jirtay maalin kalena waa gabadhaas yidhaaheen waan guriga agtaadan joognaay noo soo kaxo ha kuu timaado way habluhu kuwa isu wareega dabeeto isagoo hurdaa uu seexdo dee waktigii waa la tegay dabeetana dee markay dee gabadhi u timi xoogaa la joogtay bay dee gurigeeda iska qabatay dee ninka oo ordaya iyagoo ordayay maadee markaasaa ay noqotay meadoo de waay timo joogto xoogaa beela joogto waa ima weydeenoo iska tagtay waa markuu gabaygan lahaa harka galay ma ogtahay harka galay hurdada xunta hooy maxay seeshay maya waa ka habaarkan sumishkumaba jiro habaarkan qolooyin qayilaya ayuu maskaga darsaday gabayga kuma jirin waayahay hadda may fahmay miyanay ahayn sheekadu saa u dhicin in markii uu xanuunsaday ee uu jilcay deedna maalin hooda lasoo sabo la yidhi bal ninka mar soo arag ma jirto bal waxaa si kale ku dagoobi waaye si kale ma jirto deedna ay timi deedna isugu hurday intay aragtay iska noqotay maya waa sheekadu waa la bedelay sheekada waxay ahayd simple harka galay hurdada way xuntee hooye maxay seeshay muuse ee la socday muuse uu hungoobaye maxawdan ay weydaarshay hooygii ay joogtiyo maxay linkii ii diiday dahab lama hadleeyee maxaan daawad ku ilaaway intaas yabahayd gabayga saas oo taas waa gabayga